mooshinka hindisaha xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee loo gudbiyay gudoomiyaha golaha shacabka 9kii bishan ayaa jabay kadib markii cadeemo qoraal ah soo gudbiyeen 14 xildhibaan oo ku saxiixnaa kuwaas oo ku tilmaamay in laga been abuurtay mooshinkaasi. xogayaha xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa warqad u diray gudoomiyaha ay labadiisa ku xigeen ku xaqiijiyay in tirada rasmiga ee soo gudbisay moshinku yahay 78 xildhibaan sidaas daraadeedna uusan ahayn mid golaha la horkeeni karo xilligani. mudane gudoomiye anigoo gudanaya waajibaadkayga mas'uul maamul ahaan golaha u xil saaran xaqiijinta dukumeentiyada golaha tirada qoraalka saxiixday soo jeedinta loo soo gudbiyay oo dhammaan 92 haddii laga jaro 14 waxaa ku soo haraya hindisaha 78 xildhibaan. haddaba tirada xildhibaanada ku soo haray hindisahani ee xaqiiqda ma buuxinayo tiradani uu qabo qodobka 92 farqadiisii labaad ee dastuurka gumeel gaarka oo sharciyadu ansax ku noqon karto 3 meelood meel. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa qoraalkani baahiyay waxaana ka muuqata inay soo qoreen labada gudoomiye ku-xigeen iyo xogayaha baarlamaanka laakiin uusan ogeyn gudoomiye mursal.